gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayaa waxa uu sheegay inuu doonayo in magaalada Muqdisho uu ka dhigo magaalo la tartami karta magaalooyinka Afrika iyo caalamka. sidoo kale gudoomiye Maxamed Amiin ayaa sheegay in uu doonayo in uu magaalada Muqdisho ka dhigo magaalo amniya oo cagaaran. waxaan doonayaa inaan Muqdisho ay noqoto magaalo nadiif ah, nabad ah, cagaaran, horumarsan, lana tartami karta magaalooyinka Geeska Afrika iyo kuwa caalamka. waxaan inaga go'an inaan adkayno nabadgelyo, in la xoojiyo nadaafadda iyo bilicda, in fursado shaqo loo abuuro dhalinyarada, in kor loo qaado maalgelinta ganacsiga iyo kobcinta dhaqaale, in Muqdisho dadkeeda ay doortaan madaxda iyaga hogaaminaysa. doorasho qof iyo cod ah ayaan rabnaa inay Muqdisho gaarto kadibna qaranka ku fido. gudoomiyaha aniga igu xiga ama duqa aniga igu xiga haba la gaaray aniga laftiyayga waxaan rabaa in la isoo doorto oo aan ku joogo codkiina ina talin kartaan. ugu dambayn waxa aan idin leeyahay Muqdisho waa magaalo weyn, waxaana baaq wada jir u jeedinayaa oo dhan. Muqdisho waa magaalo taariikh leh, dadkeeduna waa hal adayg yahay. waa inaan garabsanaa in horumarka Muqdisho uu ku xiran yahay midnimadeena, iskaashigeena. waxaan dhiirigelinayaa inaan gacmaha isqabsanno oo aan horay u soconno oo aan dhisno Muqdisho cusub oo la jaan qaadaysa magaalooyinka dunida. ugu dambayn waxaan mar kale idin sheegayaa inaan si aad iyo aad uga mahadnaqayo guddigii qabanqaabiyey xafladdan oo qabtay hawl runtii qiimo badan iyo inta ka soo qayb gashay oo ii muujinaysa in loo hayo dareen iyo soo dhaweyn qiimo leh hoggaanka magaalada. marka way dhiirigelinaysaa inaan wax badan qaban karo. 18 gobol haddaan gogoshoodinahay waxaan